bal ila dhegeyso qof walba oo maanta xumaan faafinayo qisadan ayaa waxay tahay wiil muslim ah oo iska dhalinyarada ka mid ah ayaa wuxuu aad iyo aad ugu takhasusay internetka marka wuxuu soo saari jiray sawiranta xunxun wuxuu xiriir aad iyo aad u la yeeshay shirkadahan sawiranta xun faafiya saaxiibadii markii uu la fadhiistay way weydiin jireen xagee baa ka keentay sawiradan ma inoo soo dirtid noo sheeg website-kee baad ka soo qaadataa ilaa uu aakhirkii dambe uu ku yiri lacagta iska keena aniga ayaana emailkiina idigu soo dirayo mid walba wuxuu siiyay emailkiisa emailka saaxiibkii emailka walaalkii bas wiilkii shirkadii ayuu la heshiiyey lacagtii ayuu contract kula galay dabadeedna emailadii dadkii uu ka qorqoray ayuu automatic ugu program garay halkaasoo wixii asiga u soo dhaca ay automatic u aadayiin inta email oo loo soo qoray saaxiibadii markuu la soo fadhiistay way la sheekaysan jireen maasha Allah hadda wiigan sawiranta xunxun aad ay u fiicnaayeen dadkii de wadada iska qaafilsan 6 bilood markuu saas ku waday ayuu shil baabuur ku dhintay wiilkii shil baabuur ayuu ku dhintay waa la soo duugay waa lagu soo kala tagay meeshii saaxiibkii oo qishada ka sheekeynaya wuxuu dhahay isbuuci oo dhintay markuu dhintay kadib ayaa waxa ii soo dhaceen message kaas oo asiga ii soo diray oo sawiradii xun ah markaas ayaan wuxuu yiri waxaan is yiri maya message-kan mar hore ayuu soo diray laga yaabaa adi ayaana telefoonka furin waan iska dileed ayuu yiri waxay ahaayeen sawiran qurune oo kuwii hore camal bas wiigi labaad ayaa haddana waxa ii soo dhacay sawiran kale cusub oo xumaan ah markaas ayaan waxaan ogaaday ayuu yiri inuu sawiranta automatic oo emailada ugu xiray qabriga asiga oo ku jiro ayuu xumaan soo diray subhanallah ogaw qof walbo wixii xumaan oo ka tagto wali uu ku sii soconayaan waxaan wacnay ayuu yiri shirkadii oo contractiga la galay waxayna yiraahdeen buu yiri nasiye passwordkii ama kelmadii sirta ahayd ee aad contractiga nagula gashay hadii uu qofkan dhintay aad run sheegaysaan waxaan niri buu yiri ma naqaano qofkii uu dhintay kelmadii passwordkana ma naqaano way diideen buu yiri waxayna yiraahdeen waxa uu haray 4 sano iyo bar la ilaaha illa allah asiga oo qabrigiisa ku jiro ayuu xumaantii sii faafinaya maxaan ula jeedaa taas qof walba oo maanta xumaan faafinaya ama YouTube ka ahaato ama Facebook ama internetka meelaha kale ahaato ogaaw hadii aad caawa dhimato cidna intii YouTube ka gasho ku dileed gareemayso xumaanta aad faafisay cidna intii Facebook ka tagto waxa xumaan aad faafisay cid tirtiraysa ma jirto wax walba aad shaqaysatani maalinta qiyaama kitaabkaaga ayuun baad ka helaysaa Allah subhanahu wa ta'ala markuu u yiraahdo اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بل كلفر كتابك وآقرسو اسحكون أذيك هلكا مالك بدو قادون سيدا الدراديد والله هدي افرنتان كسو قارتو إلهي وكو جعليها أقاو اسكد الليت ترتر وحول بقو حمان أدمان تفافسي هدا التاني سايستا هدا انتي نفتك وجرتو كفى إذيسو هديك لو حائمان أقاو حائمان دونتو مالين الله سبحانه وتعالى وكهذا الشين دونه قعمة هذا لغة هذا يجيركا قودان يكون مرقاتي فردونا وحول بقو حمان وآت سميس ولا ليال إله سبحانه وتعالى قفل بقوصو نقضو وأقبله الله سبحانه وتعالى نآدي يغفر حق الدومدي سمركي أصول لابتان والله وحني تقول تلني نفتيد يأذنكم إن الله أنقن سكدين حمان تفافنين وحلق فائدي أياني جرين هل آية القرآن هل حديثة
oo aad qof kale gaarsiisid ee laga yaabo inuu Allah subxaanahu wa tacaala kuugu dambi dhaafo oo jannada kuugu geeyo. lagana yaabee hal xumaana ood faafiso in aad naar ku sababto, sabab gelitaankeed sabab aad u noqoto. sidaa daraaddeed walaaleel waxaa idugula talinaya la iska dayo xumaanta la faafinayo. allahna qur'aanka wacd ayuu ku maray inuu adduunkana dulli ay ku noolaan doonaan, aakhirana cadaab aad iyo aad u xanuun badan lagu cadaabi doono dadka xumaanta faafiya nana jecel inay ku dhex faafto dadka alle iyo rasuul aamine. sidaa daraaddeed iska joojiya xumaanta la faafinayo. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وحوانذا إذي سجدني أنيقوا وللكن وانو وحانا إذي قاعد سانيا إنك سيقار سيسين ولاليه نكالتو سيئوانو أقول نقطة لغيابا إن هذا أذيق أذوك عمل فلن بس قفك لأوكو عمل فلو وكو رقمه. سيدا دراديت سيفا فيها خيرك إلهي سبحانه وتعالى وحان كبرية قف والبؤفا فيه إنو دنبقيسة يدنبق والدين تيسة المسلمين تأودان أودافه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.